muuqaalkan waxaa ugu hadli doonaa qodobka 7 ee design principles waana simplicity. Simplicity waa in la yareeyo lagana saaro designkaaga waxa aan muhiimka ahayn. Hadafka ugu weyn ee design waliba laga leeyahay ama laga rabaa waa in impression ama wax cajiib ah laga dhiga. Impressionka ugu dambeeya waa haddii designka uu gaaro hadafkan. Wuxuu buuxinayaa ujeedka dhabta ah si loogu la xiriiro. Graphic design markii la joogo kastoo lagu dadaalo in symbol laga dhigo designkaaga waa markastoo uu si qurux badan u shaqeeyo. Waxaa jiro heshiis guud oo la isku raacsan yahay kaas oo ah markasta uu designkaaga ka yaraado midka kale waa markasta uu ka sii qurux badnaado. Yacni waxa ula jeedaa designkaaga xogta ku jirto sawirada qoraalada markii uu yar yahay iyo markii uu badan yahay way kala yihiin oo way kala qurux badan yihiin. Markii uu yar yahay oo symbolka yahay xogta ku jirto waxa dhihi karnaa waa simplicity uu qurxan yahay design-ka. Sidoo kalena fariinta uu gudbinayo ayaa loo arki karaa si nadiif ah. Sidaas awgeed waxaan tixgelinaynaa simplicity si loo abuuro design isku dheelitiran oo saameyn leh. Design-ka symbolka ah way fududahay in la fahmo waxayna u badan tahay in la sameeyo aragti waarta. Dadka bilowga ku ah design-ka waxay u arkaan in simplicity-ga uusan wax muhiim ah ahayn ama la xiiseynin. Si kastaba ha ahaato, simplicity waxaa loo aqoonsaday in lagu daro ama uu gaarsiisan yahay functionka. Midaan waa waxa kala soocaya nashqadeeyaha ama designerka hiwaayada u leh iyo midka professionalka. Waxayna u baahan tahay khibrad, kalsooni iyo anshax ama discipline. Mid ka mid ah xulumta ugu adag uguna xirfada badan nashqadeynta waa garashada sida loo tifitiro qayb ka mid ah design-ka. Markaan apply gareynayno ama dabaqeeno simplicity waa inaan ka fogaanaa visual elements inaan xad dhaaf ka dhigno. Waa inaan isku daynaa aana ka gudubnaa hal fikir oo adag beddelkii aan adeegsan lahayn wax badan. Simplicity markaa tixgelinayno waa inaan ka saarnaa design-keena ama in badan aan ka yareynaa xogaha aan muhiimka ahayn ee aan loo baahnayn. Markasta oo symbol noqdo designkaaga waa markasta uu noqdo design cajiib ah oo sahlan in la fahmo. Sidoo kale waxyaabaha badan oo hal abuurka ku socdo ayaa keeni doono jahwareer iyo waayo aragnimo yari markii loo eego dhanka bulshada ama dadka aanan design-ka wax badan ka siinin. Simplicity ama fududeynta maaha in laga xayuubiyo designkaaga xogaha muhiimka ah oo laga dhigo mid faaruq ah. Waxaa loo baahan yahay wada shaqaysiinta iyo isu dheelitirka visual elementska. Markaad design-ka ku jirto waxaad u baahan tahay inaad ka fogaato ama iska ilaaliso tartanada ama barataniska adiga oo ilowsan xeerarka. Visual elementska isku dhafan waxay ka shaqayn kartaa gudbinta fariin fudud. Tusaale, image texture iyo pattern texture waxaa laga yaabaa inay u muuqdaan wax adag laakiin kuwaani waxay u shaqeeyaan si ay u soo jeediyaan niyadda iyo dareenka. Fikradaha ay weheliso umalaynta looga fudud ama fariin bold ah. Tani waxay noqon kartaa wax cajiib ah markaad ka fikirto qaar ka mid ah logooyinka ugu tunka weyn. Waa wax caadi ah in loo arko simplicity ku qotonto qurux laga soo shaqeeyay. Xayeysiimaha ayaa lagu arki karaa dhaqdhaqaaq soo jiidasho leh. Badanaa xayeysiisku wuxuu lahaan doonaa dhowr ilbiriqsiyo si fariin loo gudbiyo. Marka waa inay noqotaa mid cajiib ah oo sahlan in la fahmo sida ugu suurtagalsan. Inta badan motion graphics-ka ayay qusaysaa muuqaaladaas dhaqdhaqaaqayo. Had iyo jeer qofka motion graphics-ka ah ama baranaya waa qasab waxa uu sameynayo in uu yaqaanaa oo design-ka ruleskiisa u fiiriya. Xayeysiimaha waxay caadi ahaan rabaan inay kugu soo jiitaan mid ka mid ah visual elementska oo dhaldhalaalaya oo ay weheliso fariin fudud bold ah. Waxaa inta badan loo arko wax fudud ayaa ah
waxa ugu adag markii loo eego designerka oo dhinacyo badan ka soo saxayo juhdi badanna gelinayo. haddii iswaafajinta muuqaalkan aan si wanaagsan loo fulin waxay keeni kartaa fariin mashquul badan dhaliso, lagu wareero fariinta uu xambaarsan yahay posterka, taasoo keeni doonto in aanan la fulin ujeedada la rabay. in la tixgeliyo simplicity ama fududaynta ayaa u sabab ah inta badan in wax qurux badan loo arko sumadaha. design-ka liita wuxuu noqon karaa mid aad u adag oo ku mashquulsan midabyo badan. calaamadaha ama logooyinka ugu wanaagsan ayaa ah kuwa ugu fudud. waxaa halkan inoogu eg qodobka 7 ee design principle. markaad wax nashqadeynayso isweydii sidee u tixgelisaa simplicity. sidee ayuu clear ama mid la fahmi karo u yahay design-kaaga, ama fariinta uu xambaarsan yahay ma tahay mid la fahmi karo. ma yahay design-kaaga wax cajiib ah. ma jiraan wax aad u baahan tahay ee aad rabto inaad ka bedesho design-kaaga si aad u fududeyso. maxaase adiga ku cajabgeliyo? hoos nagula wadaag wixii comment ah. waa mahadsantahay. waxaan rajaynayaa casharkan inaad ka faa'iido wax haba yaraato. waa inoo casharka xiga insha Allah.